السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرصديال لمانتين meel kasta sarogtan soo bismuwaa ka daawadaha aytan wayban daawadaha aytan page-ka oo kana barta Facebook ee Shaasha Media. Hadaba daawada page-ka dad ku sabta like dhe siina share garay muuqaalka mahadsanid. wayban baanta aku gudbi doona taariikhda kooban ee mudane Shariif Sheekh Ahmed ee madaxweynihii toddobaad ee dawladda ku meergalka Soomaaliya markaas yahay madaxweynaha maqaashi uu saleeray mudane Sheekh Shariif Sheekh Ahmed wayba isku dhaladay magaalada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe sanadka markii hay'adii 1900 wayba dugsi quraanka kiishay soo markaas 9 jeer uu ka xifdiyay isla magaalada Mahadaay sanadkii 1988 wayba ka beeray ama isku qalan jibay dugsiga sare ee Sheekh Suufi sanadkii 1998 wayba soo barashadiis jaamacadda uu ka baxay dalka Suudaan gaar ahaan jaamacadda Maqaasha ee Leerow Kurdufaan oo markaas kulliyadda aqoonta juqraafiga sanadkii 1998 waybuusa hadhamaystiray marxaladda jaamacadda markaasaydi uu waleeran dhamanay dalka Liibiya jaamacadda Kiyaalusa kulliyadda qaanuunka markaas ka qaaday shahaadada jaamacadda sanadkii 2000 Shariif Sheekh Ahmed waybuus dib hankanagaday dalka Soomaaliya waybuus markaas hanagaday aasay isla sanadkaasaydi golo Maqaashe lankama qadari xiriirka guud ee dhalinyarada Soomaaliyeed sanadkii 2000 ilaa 2002 waybuus hanagaday gudoomiyaha maxkamadda gobolka Shabeellada Dhexe uu markaas madaxa ka hayay Maxamed Umar Habeeb iyo Maxamed Dheere sanadkii 2000 ilaa 2004 waybuus hanagaday barayaashii dugsiga sare ee Jubba oo markaas ka yaalay xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshid ee magaalada Muqdisho sanadkii 2008 ilaa 2005 waybuus hanagaday gudoomiyaha Kuurey ee golaha jamciyeenta Soomaaliyeed soo markaasaydi xubin firfircoon isku mid ahay golaha bulshada rayidka sanadkii 2004 ilaa 2010 waybuus aasasay isla markaas gudoomiyaha ku nagaday maxkamadda Islaamiga ee magaalada Muqdisho sanadkii 2010 ilaa waybuus hanagaday gudoomiyihii golaha midowga maxkamadda Islaamiga ee Soomaaliyeed soo markaas gacanta ka hayay in ku dhow muddo leh bilood September 2010 waybuus hanagaday gudoomiyaha isbahaysiga dib u horeynta Soomaaliya ee markii yoon ka baxeen dalka Eritrea sanadkii 2009 waybuus usan surmay jagada madaxweyne markii shir lagu gobodii magaalada Djibouti waybuus ku guuleysiday inuu soo nagada madaxweynihii ku meergalka ee markaas yahayti mudane Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waybuusanta geeyiga Soomaaliya ee laga kasay marxaladda taariikhda Salmari wayba daawada intaas kulwadaanay taariikhda koobanayti ee mudane Sheekh Shariif Sheekh Ahmed hadaba daawada beeshka ay dhasina shargaray muuqaalka mahadsanid.